خيالك وعاونك كسوكيب كلين دمان عادي أنا كنا علمنا كلية حالية هاي ما شاء الله صدح قبلوت عوا هبين تاريخ له طبعا وصدح هوين وصدح قبل كلا دون أو هالكان إسكاشتين وحفلة روح ضبضنا نوصمين وولا له ما ركته خضر الشيرة إلهام محمد آدي أنا إذن مهتمينا ما دام عندك كسنجان أنا هاي صهرك خير الله يبارك أبوك آدي أنا ونكسنا سنة بورنا لحدني والله كسوني ما نتي عام نحرن هذا وما نقول وما نقيم هذا أنا نتركي سويس كم تجري حكيم ما له تسوي كليرا وحنا قد حصل لك سفارة الصومالية وهذا في قرنك بدل سفارة أنا له يعني سويسنا فرحت كاري ما شاء الله إن كسوق يبلغ وحنا يا صومال الهواء بالنمى الهواء وأنا ما تعلم ما تيجي قرنك سفارة شرف سنة يكون أنا يا شيء من وين كسوق يبلغ طب إن شاء الله السلام هذا الكيس أنا ممكن يجي وأنا كمان أنت ما دخل أهل ليش جوكتو هاوبنا قال سود أوشوايس وطن كان سويس وصوت دوينا يوم ما سيين ما دخل ليش جوكتو ما دخل نوسع على التيمين سير شرفت لي أنا سوق يبقشين عاوة حفلة ونحن اللي بتجسدين ومدة صومالية شرفت وأنا إذا يكون قبضت ومدة قوة على الحين إلى يوم اللي كمان عنا يا أو معناها اللي كده بريا يا إنه وح فرحان لي إنسيو قول إنسيو صومالي هنا ولا تها إسراعه صحافة فنانينك وعليكم السلام يا سلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كتب عاون وكون الميديا مناسبة لحدن اليوم لابد ولدي كسر بيجتي وهالكان نسوي إيماني إن أكسره قيمة هذه وهاي مرشد ولكن عبد الله ونو تاريخي Soomaaliya siday ku soo gaartay ilaa ay ku 1960kii bal suurayso dadkii joogay 1960kii 100 sano ka hor ay gumaysanayay oo ay ku jireen dib aad u weyn loo diiday inay xorriyad wax ku bartaan loo diiday inay hadal iyo aragti ay ka dhigtaan ayagoo jooga dhulkoodii hooyo 100 sano ka badan la kor taagnaa waa fahmi kartiin xilligaa dadkii joogay farxaddii ay dareemi kareen oo ahayd inay ka xoroobaan dowladihii markaas ku soo duulay Soomaaliya oo ay koob ka ahaayeen Faransiiska talyaaniga iyo Ingiriiska الله سبحانه وتعالى وقال إلهي هو مهدي تدان كتب إنه حريتي دبنا وصول عليه وصغار مري نحدكي عاو هذه الطريقة أو كبيرين هاي سنة بوردي يحدني لبعض وحان أمة الصومالية ملكة تجربته وهم بلينا يا يسوونهم بلينا midowgii labada gobol ee waqooyi iyo koonfur waxaan soo dhaafnay 26 Juun oo ahayd markii ugu horeysay calanka Soomaaliya buluuga laga taagay ee leedahay Soomaaliya waa dareemi kartiin dadkii xilligaas joogay farxadii dareemi kareen waxaan Allah subhanahu wa ta'ala u baryeena inuu jannadii firdawska ka waraabiyo dadkii xilligaas u soo halgamay u soo horay naftoodii maalkoodii waqtigoodii ilaahay waxaan u baryeena inuu marka hore jannadii firdawska ka waraabiyo taariikhda ma rabo inaad dib ugu laabto sababtoo ah waa wax qoran keliya waxay tahay xasuusin waxaan Allah subhanahu wa ta'ala u baryeena dalkeena inuu
sidii si ka wanaagsan 30 sano ka hor oo ahaa inuu ilaahay dib noogu soo celiyo midda kale markaa halkaas aan uga baxo sanad guuradii 62 waxaa kaloo rabaa inaan waxyar aan ka ilaahdo qodob ah dalkii waad ogtihiin waxa uu aad iyo aad ugu liitaa abaaro inuu ilaahayna ka dulqaado duceyno oo aan markasta iyo markasta aan ka warqabno meeshaan ka imaanay waxaan joognaa qurba waxa waa taqaaneen waxa uu yahay balse aan markasta aan ilmu hayno dalkeennii sida uu yahay qaabkuu yahaanaha markasta haddaan nahay dalkii aan joogno iyo haddaan gudaha joogno intaas markaa u gudbo waxaa halkaan salaan idinkaga wadaa ambaasador eben maxamed saalax oo aad u jecleen kuwankaan aad u quruxda badan waan ka xumahay dalka ma joogto waxay jirtaa Vienna oo ay ku aaday in ay safaarad kale xaggaas laga furi doono ay soo furto ilaahay ayada waxa uu baryaynaa inay hoosheeda u gabagabeeyo waxaan jeclaan lahayn waqtigoo dheer dadkoo daalan inaan soo gabagabeeyo una duceyno dalkeeni wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Wow.
calankaag waahibo sharafkugu hagoogane ciidaad waa hodan cadku haqa beeshe waa haleeladeeno horweynku irmaano cadku hiiranayse calankaag waahibo sharafkugu hagoogane ciidaad waa hodan cadku haqa beeshe waa haleeladeeno horweynku irmaano cadku hiiranayse haybadu waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo haybadu waxaan ku leenahay dhulkeenna hooyo wana lama quraane hagarli iyo waxugu qabo wana lama quraane hagarli iyo waxugu qabo haybadu waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo haybadu waxaan ku leenahay dhulkeenna hooyo wana lama quraane hagarli iyo waxugu qabo wana lama quraane hagarli iyo waxugu qabo hantiyay macaan waa midan hoy laga oranay helayo 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 iyo kulayliyo baraf maleedu keeno inaga qalayne Somali hoy odaala weeyaan deegaankiisa hodanka loo wada hamuume hanfi iyo kulayliyo baraf maleedu keeno inaga qalayne Somali hoy odaala weeyaan deegaankiisa hodanka loo wada hamuume haybadu waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo haybadu waxaan ku leenahay dhulkeenna hooyo wana lama quraane hagarli iyo waxugu qabo wana lama quraane hagarli iyo waxugu qabo haybadu waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo haybadu waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo wana lama quraane hagarli iyo waxugu qabo wana lama quraane hagarli iyo waxugu qabo hantiyay macaan waa midan hoy laga oranay helayo hantiyay macaan waa midan hoy laga oranay helayo hantiyay macaan waa midan hoy laga oranay